الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا صالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. إخواني في الله، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته مع سيد الدعاة وإمام المرسلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله نجا أقبل أعماش خيرك ولا ليال إيمانكنا الله إنه زياديه وقت يدا فضلك بدنا كوي كفاية است الله نجا دقو حنو كتشر نابشي محرم وما أنت سجال وأنا معنتي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الله قارسين لها وصوميو beri oo ka dambeysana waa caashuura sanad baa dambigeyga lagaga dhaafayaa haddii aad soonto waa maalin aad u qiimo badan maalintii nebi muuse ilaahay uu badbaadiyey subxaana wa tacaala ama maalintii xaqa ilaahay uu sarraysiiyey jala jalaaluhu baatilkiina uu dhulka ku dhuftay mahadnaq daraaddeed ayaa loo soomayaa ilaahay subxaana wa tacaala nicamkiisa uu addoomihiisa ku galadaysanayo. intaa kadib walaalayaal waxaynu ku soo jirnay xadiidkii ka warramayey dhismaha usrada ama qoyska kana qayb qaadanayay sidii aynu u heli lahayn qoys wanaagsan oo ubad khayr qabi ay ka soo baxaan oo bulshada wax u tara. waxaad ogsoon tihiin bulshadu ama mujtamacu wuxuu ka kooban yahay usar iyo qoysas. qoysaska isku tegay ayaa bulsho noqda, bulshadaasaana dowladdu ka samaysantaa. haddii usarka iyo qoysasku ay wanaagsan yihiin, waliba khaasatan labada udub dhaxaadka qoyska oo ah marka aabaha iyo hooyada hadday fiican yihiin, isku wanaagsan yihiin, ubadkuna way fiicnaanayaan oo way wanaagsanaanayaan. macnaha labadoodu markay meel wada jeedaan waxa ay xoogooga dhan gelinayaan sidii ubadka ay u tarbiyadeyn lahaayeen. laakiin labadii hadday kala jeedaan, inta iyagu isku maqan yihiin baa ubadkiina lagala hoos baxaya. marka waxaa imanaysa uun in meelahaasun laga calaacalo oo ubadkii baa xumaaday oo kana oo maalin dhawt waxaa la ii sheegay markaa ninbaa masaajid ka kacay, markaa wuxuu ka sheekeynaya dhalinyarta meelaha xashishadaha iyo ku cabay ee masaajidkii waaba lasoo shiiday ba isagoo agtiisay ku cabayeen. masaajidkii waaba dhagaxa loo qaato lasoo shiiday. waxaa shaki la-aana ana kulla ibnin, inan kasta iyo gabadh kasta oo aan sax noqon waddadii loogu talagalana aan marin inay qoys ka yimaadeen. taasi waa shaki la-aan wey. marka qoyskaa ay ka yimaadeen ee ay ka soo baxeen ayuunbaa sababta iska leh. hadday ku dadaaleen oo geed dheer iyo ku gaabanba ay u fuuleen sidii ay u tarbiyadeyn lahaayeen, oo laakiin dee farha laga qaad ay noqdeen, farha ka baxeen, ilaahay waxa uu raacayaa oo u qabsanayaa ma jirto. waayo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha. mararka qaarkood baa waxa dhici kartaba marka ilmahan adigoo wax kasta ku bixinaya tarbiyadiisa inuu sidiisa kale u yahay qof xun, kaa cidna kuwa qabsan mayso. ee ka lagu qabsanaya waxa weeye midka aad cuntadiisa un ka fikirayso. ilaahay saa inagama dhigee eed ka fikirayso jidhkiisa dhismihiisa aad ka fikirayso
yaanay waxba waayinun midkaad ka fikirayso laakiin akhlaaqdiisa iyo la socdaa halkuu wax ka bartaa aanan dan iyo muraad ka galay haddaba goormuu qofku taa ku fikiri karaa waa marka dee labadii ay ka imanayeenay iswaafaqsan yihiin marka xadiidkii aynu ku jirnay kaasuu ka qayb qaadanayay marka imise dumar baynu soo qaadanay haddaynu isxasuusino ya haddaad la socoteen 7 dumar aynu soo qaadan 7 dumara oo isku jiray oo mid odaygeega ammaanta iyo mid markaa odaygeega wax ka sheegta ahaa horta majliskuna aan idiin sheego majlis namiimu ahaa majlis namiimiye ah oo majaalista ay dumarku ku koraan ay ku markaa kulmaana ayuu ahaa laakiin dhacay waqtigii nabiga intaan la soo saarin ka hor allahuma salli calaa maxamed waxaanay u muuqatay inay ahaayeen dumar dad wax iska yar haystay ay qabeenoo waqti faraaqoo lagu sheekaysta haysta laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha uu ka dhageystay wixii laga odhanaya rasuulku waa ka yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa inoo harsanaa 4 dumara 4taasi waxay mid walba ka warrantay sifaadka iyo dhaqanka ninka odayga ah ay gabadhu ku jeclaan karto xaaskiisu uu ku jeclaan karo macnaha 4 nin ay noo hadhay ee dumarku ka sheekeynayaan waa ragga ay ugu jecel yihiin dumarku inay la noolaadaan oo ay markaa nolosha la wadaagaan markaa nin walba balada sidaasaad isku eegaysaa muraayadda insha allah miyaad ku 4taa keebaad ku jirtaa haddii 7dii hore ay kula tagtay weli fursaddii way ku bannaan tahay laakiin intaa waxaan ka horreysiinayaa aharka cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu ardaa wuxuu yidhi cabdullahi ibni mascuud rasuulkana wuu u tiiriyey laakiin inuu xadiidku mawquuf yahay buu sax ku yahe wuxuu yidhi ina allaha qasama baynakum akhlaaqakum kamaa qasama baynakum arsaaqakum haddaba lu fiirsada ilaahay dhexdiina wuxuu qaybiyey akhlaaqdiina ilaahay baa idin qaybiyey sida uu ilaahayba arsaaqda idinku qaybiyey oo aanu nin la arsaaq ahayn waa la kala jeebroon yahay waa la kala arsaaq badan yahay sidaasoo kale ayaa loo kala akhlaaq badan yahay allahu akbar wa ina allaha yu'ti almaala man yuxibu waman laa yuxib walaa yu'ti aliimaana ilaa man axab ilaahayna maalka ninuu jecel yahay iyo nin aanu jeclaynba wuu siiyaa laakiin iimaanka qofuu jecel yahay unbuu siiyaa ilaahu iimaanna sii ilaahay maalka ciduu jecel yahay iyo cid aanu jeclaynba wuu siiyaa laakiin iimaanka qofuu jecel yahay unbuu siiyaa فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان هدي إلهي أدون جعلاده إيمان بوصية إيمان أيو إلهي قلبك وقليا إلهي إيمان نو زيادي إله إيمانك نو كردي إله إيمانك نو زيادي هذا فمن ظن بالمال أن ينفقه وهاب العدو أن يجاهده والليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله وحجري ninka maalka ku bakayla inuu bixiyo cadowgana ka haybaystay inuu la jihaado habeenkana markaasi ka baqda habeenka iyo mashaqadiisa iyo dhibaatadiisa inuu soo kacana ka baqda bal habadiyo laa ilaaha ila allah wallahu akbar walxamdulilah intaasaa iyaa markaa cibaado cajab badane bal intaa horta intaa hadduu kari waayo intan ha badiyo weeyaan yani qofkii waxaa la diidan yahay inuu maxay noqdo soomeer bilaa shaqo inuu noqdaa la diidan yahay intaasi badi waxaan uga dan leenahay ilaahay baa dadka kala duway subxaana wa tacaala akhlaaqdana allaa kala siiyey subxaana wa tacaala markaa dadkan laga sheekaynayo waad aragtaanoo akhlaaqdii bay ku kala tegeen yaa bixiyey allah subxaanahu wa tacaala haddaba hadduu alla kuugu arsaaqay oo kuugu galadaystay akhlaaq wanaagsan oo fiican oo cid walba ay kaaga marakacday waxaad ogaataa allah subxaanahu wa tacaala waa uu ku soo dhoweeyey waanuu ku karaameeyey gabadhii haddaba 8aad ayaa odaygeegii sheegtay
وحيتري أنيقا زوجي المص مص أرنب والريح ريح زرنب بيتري أنيقا أضاقيقو وحيتري تابا شبك هيلا أيولي هيتري urtiisuna geedka udgoonka badan ee zarnabka la yiraahdo ayaa markaa urtiisuna ay tahay waxay ku amaanaysaa odagayga dabci wanaag iyo caraf udgoonin si fiican isku habeeyo oo dhisan oo udugga iyo cadarka iyo ka soo baxaya adyaabeysa oo dee aan dhididka isku dayno marka waka طيب أخلاق دي سنة في عنته دبع سن سيدا أدو جعاش هاي إن إسلامتي أد مركا أد واركتو يدو عرفة يسا أي يدو رو جعاش هاي ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يساقو مارين أرددي سلا سعودة أيو حكوسو دوادي حافديسي كدب بركدبو كل أحدي ومادي عمامدي بها قاجستي يعني ويسهبيي markaasuu yiri sidaan u jecelahay aniga isku ka yaabayso ayaan u jecelahay inaan isku habeeyo adigoo dhididkiila hadda timaado meesha oo de waa mushkilad ba kugu dhacaysa marka islaantan maxay ku amaantay odagii waxay ku amaantay inuu yahay oday muuqaalkiisu fiican yahay udugiisuna uu fiican yahay waxay ka jecel yihiin dumarku malaha nin noocaas oo kala halkaasay kaga baxday islaantii sagaalaad waxay tiri zawji rafiicu alcimaadi طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي odagayga yadna way amaanaysaa waxayna ku amaanaysaa waxay tiri odagaygu waa oday guriga uu galaa aad u weyn yahay meesha ay galaan waa waasac guri weyn ayaa odagaygu dhisay leedahay waa nin seeftiisa galka uu ku qaadaana ay dheer tahay macnaha waa nin dheer bay u jeedaa tawiilu nijad waxa u jeedaa waana nin dheer cadiimu ramaad dambaskiisuna uu badan yahay dambasku waa maxay waa kii martida uu sooriyeynayay sidaa daraaddeed markay marti timaado waxbaa loo qalaya ina waa nin karam badan oo deeqsiye martidii timaadaba dab baa loo shidayaa idan dambaskii baa batay cadiimu ramaad qariibu lbeyti min annaadi bay tiro meesha ay dadku ku kulmaan buu gurigiisu ku dhow yaho nin bakhaylo magaalada cidhafka uga baxaysaanay marti ugu iman ma aha ee waa nin meeshii ay dadku ku kulmayeen gurigiisu u dhow yaho ninkii u baahdiba uu yar imanayaa wixii alla ugu qoray ayuu ka qaadanayaa marka maxay ku amaanaysaa deeqsinimo iyo karam iyo meel wanaagsan oo uu dejiyey ayay ku amaanaysaa noocaana way jecel yihiin dumarku noocaana dumarku way jecel yihiin tii tobnaad baa waxay tidhi zawjii maalik bay tidhi odagayga maalik baa la yidhaahdaa wama maalik maxaa maalik ku ogeysiyey tiri maalik maxaad ka taqaanaa khayr maaliku khayru min dalika bay tiri maalik odagaygu waxalla waxaad islaamo u ka sheekeynayseen maanta oo dhan isagaa ka khayr badan oo waa maxay lahu ibilun kathiiraat waxay tiri lahu ibilun kathiiraat lmabaarik wuxuu leeyahay geel fadhigiisu uu badan yahay oo aan soofin oo markaa aan meelaha u daaq tagin qaliilaatul masaarixi intuu daaq tagayaana ay iska yar tahay waa cajaba geelaasi maxaa loogu talagalay wa idaa samicna sawta almizhar ayqanna annahunna hawaalik bay tiri markay maqlaan geelaasi codkii markaasi allahuma salli ala maxamed ama kamankii ama codkii loogu talagalay in martida lagu qaabilo markay maqlaan geelaasi waxay yaqiinsanayaan in maanta qoorta laga jarayo oo ay markaa dhimanayaan waxay ku ammaanaysaa iyaduna inuu yahay nin hantidiisu badan tahay oo weliba hantidiisuna geel u badan tahay habase ahaatee geelaasina ay yihiin kuwa u diyaarsan marti kasta oo timaada in caanahana looga liso loona qalo kaasina waxa weeyaan qayb ka mida dadka ay jecel yihiin ee markaa dumarku
waad garanaysaanoo rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in martida oo la sooriyeeyaa oo la karaameeyaa ay ka mid tahay markaa qofka iimaankiisa man kaana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfah qofka ilaahay maalinka dambe rumaysani martidiisa ha sooriyeeyo ha karaameeyo lianna ikraama dayfi min akhlaaqi almuslimiin wa min akhlaaqi alambiyaa martida oo la sooriyeeyaa akhlaaqda ambiyaday ka mid tahay ninkuna inay islaantiisa garanaysa inuu martida u roon yahay iyo inaanu u roonayn islaantiisana u dhow baa garanaysa markay marti timaado inuu iscuncuno iyo inuu markaasi uu soo dhaweeyo yaa garanaysa islaantiisu baa garanaysa waxaad garanaysaa nebi ibraahim calayhi salaam ilaahay wuxuu ka warramay martidiisii nebi ibraahim muxuu sameeyey markaa nebi ibraahim muxuu sameeyey allah wuxuu yihi hal ataaka xadiiثu ضayfi ibrahim almukramiin id dakaluu calayhi faqaaluu salaama qaala salaamu qowm markiiba faraaga ilaa ahlihi fajaءa bicijlin samiin mar alla markuu martidii arkay nebi ibraahim calayhi salaam ay salaameenu salaantii ka qaaday ayaa markiiba maxaad soo doonteen iyo qolo holaa idinka horreysay iyo ma annaga baad meesha naga taqaanaayo waxaa ma odhanay wuxuu tegay xaggii xaafaddu u durkay xaafaddii buu tegey kadib wuxuu soo sameeyey dibi aada u shilis bicijlin samiin ayuu qur-aanku ka cabiray wuxuu soo qalay dibi shilis markaasuu weliba soo xaniideeyey markaasuu u keenay martidaan ahayn martidii bani aadam oo dee markaa cuni lahayde waa martidii malaa'igtay ahaydoo warna kamuu hayn malaa'igtina ilaahay awood wuxuu u siiyey inay bashar isku ekaysiiyaan oo innaga dee awooddoonu waa iska daciif oo qof wax kale isku ekaysiin karaa ma laha awooddiina ilahay waa xadiday subxaana wa tacaala laakiin malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sakhiray inay bani aadam iyo bashar iska dhigi karaan oo nabigeena maxamed aba calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil markuu u yimaado suuro muuqaal qurux badan oo asxaabta nebiga mid ka mid a ayuu isku soo ekaysiin jiray mararka qaarkood nin aada u labisan oo dhar cadcad oo quruxda aad yaabto iska soo dhigi jiray xadiidkii dheeraayaad garanaysaan cumar ibnu khataab inoo warinaya kaga warramaya islaamka iyo iimaanka iyo saacadda qiyaamaha waxaa yimid buu ihi rajulun shadiidu sawaadi الshacr shadiidu bayaad الhiyaab laa yuraa calayhi aharu الsafar walaa yacrifuhu mina axad xataa jalasa ila nabiyi sal lla alay slam waxaan uga dan leenahay martidaasi ayuu u qaatay tii bani aadamka nebi ibraahim calayhi salaam markaasaa waxay marti lahayd u sameeyey faqarabahu ilayhim faqaala alaa ta'kuluun uu soo dhaweeyey markaasuu yihi maydaan cunayn dee markuu arkay martidii oo inay martidana badanaa waad aragtaan oo safar markay ka timaado cuntadii loo soo dhigo kama sii joogjoogaane markaaba way ku bilaabaan markuu arkay iyagoon cuntadii usoo jeedin waa kii ka shakiyey qisaduna markaa dee waad garanaysaanoo ilaahay baa subxaana wa tacaala inoogu faahfaahiyey qur-aanka dhexdiisa idan ikraamu dayf waxay ka mid tahay min alakhlaaq alxasana alatii markaa tuxibuha annisaa min alrijaal waa akhlaaqda wanaagsan ee dumarkuna ay ragga ku jecel yihiin waayo gabadhan walaalkeed baa u imanaya oo martiya waxaa u imanaya markaasi adeerkeeda oo martiya dee hadday aragto ninkii oo karaameynaya o wanaajinaya waxay leedahay ninkani waa nin maasha allah hadday aragto isagoo markaa wejiga u duuduubaya ama dee arrintaa ka xanaaqsanna dee waxay ku daraysaa dadkaa iska markaa aan hagaagsanayn tobankaas dumara xadiidku kii uu la magac baxay ayaynu imika galaynaa oo waa islaantii 11aad waa umu zarac midaan idiin sheega horta xadiidkan gabadhan ka sheekeynaysa abu zarac oday ay kala tegeen weeyaan nin kalaa qaba imika laakiin waxay iloobi leedahay wanaaggii iyo sidii wanaagsanayd oo ula dhaqmay bay iloobi leedahay xataa ninkan dambe nin wanaajiye weysay ka sheekeynayso laakiin haddana inama alxubu xubul awali baa la dhahdaayo jacaylku waa kii hore un haddii marka hore islaantaada aada si fiican oo marka dambe nasiib uu keena inaad kala tegtaan ku iloobi mayso weligaaba ama haddii kale war intaa noogu daayo unbad odhan
waxaa la yidhi nin baa muxuu ahaa islaantiisu ku xumaa moogta islaantiisu ku xumaa ilaahay nagama dhigo kuwaase haddee wax ama uu dili jiray ama waxa weeyaan uu aflagaadayn jiray dadka ragga qaar baa dumarkooga aflagaadeeya qaar baa dila qaar inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun haddana habeenkiibu wax ka dayaya haddana intuu dilo rasuulkuna uu sheegay calayhi salaatu dadka noocaas oo kale maxaa dhacay marka ninka wuu dhintay ina waa la dhimanay weligii la joogi maayo kadib tacsidii baa loogu yimid islaantii waa la taxsiinay waxaa la axsan allahu cazaak ilaahay tacsiyada waxa weeyaan sabir iyo man allah kaa siiyo kolley jannadaad ku kulmaysaa adduunyada ilaahay noogu daayo baysa kolley jannadaad ku kulmaysaa baa lagu yidhi moogtahay waxaad tiri intaa adduunyada nagaga ekaato ka war hadday saa ku tira islaam inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ayib sidoo kale waxaa jira dee dumar iyaguna aan raggooga u fiicnayn oo allahuma salli ala maxamed intaa ay wada joogaan la uun ilaahayow bal si uu noo kala furdaami diidayana inuu markaa islaantii furo uu ka tago oday baa sidaas oo kale isagana sheekh buu dhegaysanayay ka sheekeynayay markaa jannada iyo dumarka ilaahay uu jannada ku abuuray ee qiimaha badan markaasaa siduu u dhegaysanayay ayuu markii dambe wuxuu yihi dee markaa dumarkaa xurracayntaana ilaahay baa siinaya subxaanahu watacaala islaantiisiiyo xurracayntaba kasii fiicanna markaasaa ilaahay u keenayaayo sheekhow intaasaad ku biisay buu yihi jannadii waar khaatiyaan baan adduunkii ka taagan dhehe janno maxaa noogu geeriyo musnay marka haddii aan la isku fiicnayn dadka qaarkood dhimashada uma laisla sugayaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun haddii kale waa taasoo ka hadhi mayso umu zarc haddaba waxaan ujeedaa islaantan koob iyo tobnaad waxay tidhi zawji abu zarc aniga odagaygu abu zarci weey famaa abu zarc talow haddaba waa nin nooceeya waxay tidhi anaasa min xuliyin udanaya bay tidhi dhagahayga dahab buu ka buuxiyuu suray bay tidhi wamala'a min shaxmin cadudaya xubnahayga iyo dhudhumahaygana baruur buu ka buuxiyey tidhi markay leeyahay cududii baa dee buurnaatay waxaa ujeedaa waxaa noqday gabadh markaasi buuran sidii wax loo siinayay een waxba looga garanay wabajaxani bay tiri way sharfay markaasaa naftaydina ay ila sharfowdo dee ila weynaatay islaantii buu qiimo u yeelay markaasay iyadna qiimo u yeelatay nafteedii markaasaa dee waxaad garanaysaa marka qofka qiimo loo yeelo iyaduna abaalkaasi weligood iloobi mayso waxay tidhi wajadanii fii ahli ghunaymatin bishiqin bay tiri wuxuu iga helay oo iga soo guursaday reer iska danyara oo xayn ariya meel buur markaa dhinaceega ku haysta ayuu iga helay markaasaa wuxuu iga dhigay bay tiri fajacalanii fii ahli sahiilin wa atiitin wa daa'isin wa munaq reer wuxuu igeeyey bay tiri geel badan oo ari badan oo wax walba leh ayuu idhex dhigay bay tiri facindahu aquulu falaa uqabax bay tiri agtiisa waxaan doonaan ku idhaahdaa marnaba ima idhaahdo ee aamusaxo mahayside waa la dhegaysanayaa bay tiri waxay tiri waa arqudu fa atasabax waan iska seexdaa ilaa subaxaan yaan ku gaadhaa bay tiri macnaha halkaana waxay ujeedaa waxaa u shaqaynaya khadam buu u qabtay oo fadhigaa loogu shaqaynaya ayib wa ashrabu fa ataqanax bay tiri waan cabbayaayo waan ka dhargayaa bay tiri markaasaa waxay ka hadashay hooyadii inantiisoo islaan kale u dhashay inankiisoo islaan kale u dhashay xataa waxay sheegeen oo xadiidka ku beeriyeen qaarkood inay xataa eygiisii ka hadashay eygiisuna xataa waa sidaasay tiri haddaba halkaa markay meeshu maraysa bay tiri ayaa abu zarc baa maalin baxay bay tiri kadib gabadh buu la kulmay 2 caruura haysata oo agteeda ay ku ciyaarayaan markaasuu ifuray gabadhiina uu guursaday tiri marka ninkii aniga waa ifuray laakiin gabadhii buu guursaday anigana waxay guursaday tiri dabadii nin muxuu ahaa aada u hanti badan oo wax walba ii dhameeyey bay tiri wax kasta ii dhameeyey oo igu yidhi umu zarciyey wax alla waxaa doonto maalkaa cun waxaa doontana ka qaado reerkiinana waxaa doonto uga gey siday doontaba ha noqotay bay tiri wax kasta oo ninkaa dambe uu isiiyey wax kasta oo ninkaa dambe uu isiiyey
haddii aan isku keeno may gaadheen weel yar oo Abu Zarciisiye bay tiri bal ka warrama haddama qaba imika ninkaas kala qaba haddana u fiirso oo wanaagii uu u galay iyo tacaamulkii wanaagsan uga baratay baleeg waxay leedahay waan hadlayaa markaan hadlana hadalkayga lama xumaynayo afka laygagama dhacayo dumarkuna waxay iska jecel inay hadlaan markaad u tagto inay hadlaan oo kula hadashay jeceshahay haddaad dhegaysato wax ka fiican ma jiro laakiin haddaad markiiba ku xidho adeer shaqan ka soo baxay daarina iska fadhiiso meesha wax ka samaanay ku dhaad tiraado yaa weynag inta meel un ba lagu guntiyo hadhow toola hawshaad way adkaaraysaa haddaba see doontaba ha noqoto rasuulku muxuu yiri calayhi salaatu wasalaam waxay tiri Caaisha rasuulku wuxuu ugu yiri sallallahu alayhi wasallam kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in anigu Caaisha haddaba waxaan ku ahay Abu Zar'i sidoo ummu Zar'i u ahaa ayaan ku ahay wax rasuulku doortay markaa intii dumarku ay ka sheekeen ahsan al-azwaaj ninkana waxa la rabaa markaa inuu noqdo ahsan al-azwaaj laakiin wuxuu ku dar rasuulku ma adgaran laakiin anigu ku furi maayo iyada wuu furay anigu ku furi maayo Caaisha waxay ku tiri bal anta khayru min Abi Zar'i bay ku tiri adaa rasuulka ilaahayo Abu Zar'i ba ka khayr badan haddaba wafaaga iyo markaasi akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka fiican ee labada qoys ee bulshada ka kooban tahay laga markaas ay ku dhaqmaan ayaa ubadkuna ku fiicnaadaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala ubadkana inuu noo wanaajiyo odayaasha iyo islaamahana inoo wanaajiyo qoysaskeenana uu ka dhigo qoysas isjecel oo ubad wanaagsan oo qiimo badan ay ka soo baxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala taasaan weydiisanaynaa marka ikhwaani fillah majliska waxaan u keenay ahayd muxuu ahaa waan uga warranay dee majlis nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam looga warramay bay ahayd qiimo badanna kule culimmaduna ay xataa qaarkood ay ka qoreen markaa kutub ka qoreen fawaa'idda ku jirtay ay tirinayaan daraaddeed waxa weeyaan wax haddii runtii intaa wanaagsan ee la sheegaya la qaato nin walba isku dayo kii ugu fiicnaaya ee laga sheekeeyey inuu noqdo inuu isbeddel ku arkayo reerkiisa haddiiba halkaasi ay ku fiicnaato oo reerka aad ka wanaagsanaatana laa shaka walaa rayba inay shaqadaadu wanaagsanaanayso waxbaristaadu haddaad macallinta wanaagsanaanaysaa maamul haddaad tahay maamulkaagaa fiicnaanaya waa haddii gurigii aad ka timid aad ka dhisan tahay haddii kalood isla buuqayo oo war iska hayn uun baad tegaysaa shirkaddii kadibna dadkii meesha joogoo dhan baad sodonacaysaa ardaydii baad u tegaysaa ardaydii baad ku wada xanaaqaysaa marka waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala qoysaska inuu inoo wanaajiyo rag iyo dumarba waxaanan ballankeenu yahay insha allahu tacaala nin walba wixii ka dhiman inuu markaa isku biiriyo waliqaa'una yowma aljumcati alqaadima biidni illahi tabaaraka wa tacaala ومع قصة أخرى فيها تربية لنا جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا في زمرة المسلمين اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون